السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي قالي الصومالية سود وهذا ما يقول باجوكتان ولا شيء فيهم والحمد لله ولا ظننا هاي إذن كانوا حي لها إنك قبريا يا ما يقول باجوكتان إن نبض برواقه بش أتكو جوكتان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق. إلهي وح خيرا كبرنا ولا له قاري. إلهي وح نبضا كبرنا. إلهي هرمرا كبرنا. إلهي برواقا كبرنا. إلهي دم بدافا كبرنا ولا له قاري. ما أنت وحبي إذن توصلها اللبستيك يا إذن كبرنا قاضي وإذن صعدا إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا له قاري. لكن ما أنت إذن كلا هدلاي وح سيريس بإذن كلا هدلاي ولا له قاري. إن أيدي ستان وروا بإذن الله. waxay ku dhaliyay waxaan ka hadlayn waxay tahay laba waxyaalood walaalahay qaaday waxay ku dhaliyay waxay tahay mid u horeyso waxay tahay wiilkan youtuberka ah oo aan fiirsado oo Cabdi Fataax Boodhare la dhaho barnaamij uu ka hadlayay shalayto aad baan ula qeyrooday aad baan aan ugu raacay wuxuu uu ka hadlayay eray kasta uu ka hadlay waan ku raacay waa eray wax sax uu ka hadlayay qofka markuu wax sax ka hadlaayo waa in loo qiraa inuu wax sax ka hadlaayo wax sax uu ka hadlaayo wax Soomaalida uu ku sheegay dhanba waa sax waay kaas ay u dhaliyay marka inaan barnaamijkan maanta idin la hadlo walaalahay qaali iyo video aan shalay soo galiyay anoo shaqada jooga aan soo galiyay oo inta iska caajisay aan live ma soo galo aan live inta iska soo galay aan ka hal saac markuu ku jiray videogan soo galay macnuu ila sameyn waay waan ka saaray markii aniga caadadeyda ma aha wax inaan wax laga dheefan inaan soo galiyo caadadeyda ma aha videogaas wuxuu ka hadlayay nin sheekho guursaday wax macna sheegaya ma qof walba calafku ilaahay u qoray uu guursanaya qof walba calafku ilaahay u qoray uu cunaya qof walba ilaahay wuxuu meesha u qoray buu maraya marka macna uu ila sameyn waaye wixii aan macna ila sameeyna lacag kasta uu sameeyay kama fakaraani waa ka dijay saacad ka bacdi marka qof walba wuxuu ilaahay u qoray buu guursanaya u maraya walaalayaal marka waxa maanta Soomaaliya idin weydiinayo waxay tahay waxa idin ka codsanayo waxay tahay waxa ugu hormarnaya shacabka Soomaaliyeed kommentiyadiina waan akhriyaa kommentiyadiina ugu dambeeyay waan akhriyay aniga email soo qorin qof kale u soo qorteen waan akhriyay waxaan idin sheegayaa walaalahay qaali Soomaalida hadaan nahay waana laga tagay hadaan Soomaali nahay dhinac kasta waana looga tagay adduunku wuu naga tagay sababtana looga tagay ma taqaanaa adduunyada lama tartamayno tartan laguma jiro adduunkii lama tartamayno waxyaalo daciif ah iyo wuxuu Cabdi Fataax Boodhare ka hadlayay aan ku mashquulsanahay adduunyada way naga tagtay waxaas hore igu soo hadleen way qabaan way ka hadlaan way soo qaataan laakiin noloshooda dhan kuma baysgareeyaan waana laga tagay waana xaqiiq in Soomaaliya laga tagay ciidda afka looga shubay Soomaaliya dadkii anaga 30 sano aan ka horeynay 30 sano ka hor aan wadamadii aan ka horeynay waa maanta naga hormaray say tahay nooga hormaray waayaan darro waay qof idin kamida oo ku faraxsan inuu jiro ma umaleynaayo qof idin kamida oo xaaladda Soomaaliya ku jirta maanta ku faraxsan ma idin ku jira ma umaleynaayo hadduu idin ku jiro Soomaali ma marka walaalahay qaali waxa idin sheegaya waxa aan ku mashquulsanahay oo yaryarka ah oo waxba sheegaynin oo macamna sheegaynin oo nalooga tagay oo ciid afkana looga buuxiyay oo markii aad tiraahdo Soomaaliyaan ahay yaa tahay dadka ajnabiga markay ay weydiiyaan oo dhaw Soomaali lama sii weydiiyo iyo warama wadanka lama xiisaynaa lama sii weydiiyo aad baa u xumaada halkaas lagu xiraa
waxaan jeclaan lahaa in laysii weydiiyo touristigiina xagee la aadaa, magaaladee ugu fiican, gobolkee ugu fiican. haddana waxaan qabnaa xeebta ugu dheer africa, soomaaliya ku taalla, indian ocean. idinka wax yar ka fakara soomaaliya oo nabada oo dhisan iyo xeebtaan leenahay, sidii dadku noogu soo booqan lahaa, wadamada kale say noo soo booqan lahaay. weligeen ma ka fakarteen? maya, ma ka fakarna. waxaan ka fakarnaa wax daciifa iyo fahiimo saciid inaan ka hadalno, sheekh iyo shariif, fanaan iyo gabyaan, inaan gabar soomaaliyeed oo youtubera aan ka hadalno ama sawirkeeda soo saaran. waxaasoo dhan iyo fakarka iyo tartanka aan dadka la tartami lahayn, raggeena ay ragga la tartami lahaayeen, dumarkeena ay dumarka la tartami lahaayeen. waxaan ku mashquulsanahay gabar walaashaayo oo youtubera inaad ka hadasho ama musawirkeeda soo saarto. taasaa ka muhiimsan. waa ayaan darro waa. ama nin iyo naag isfuray waaga cali yuusuf, nin iyo naag isfuray, nin iyo naag isguursaday, nin iyo naag isfuulay, nin iyo naag waxaan waxba ahan. soomaalida way waalatay soomaali. afkaa ciid looga shubo waa laga tegay, say tahaa looga tegay, adduunka wuu ka tegay soomaaliya iyo soomaalida. waa ayaan darro waa. 30 sano ka hor dadka annagaa u sarreynay, africa annagaa u sarreynay. maantana waa lagu leeyahay soomaaliya waa ayaan darro waa. marka waxaan shacabka aan ka bilaabayaa, shacabka soomaaliyeed aan ka bilaabayaa. walaalahayga qaaliga, walaalahay qaali, waxaan rabaa inaynan magacayga eedinaan wixii shalay eedinaan soo qaadin, aniga igala hadlin. wixii shalay aniga noloshayda ahaa inaydan igu soo hadal qaadin aan idinka codsanayaa shacabka soomaaliyeed. mustaqbalkayga inaa igala hadashaanaan rabaa, inaa i weydiisaanaan rabaa, inaa igu dhiirigelisaanaan rabaa. saas idinkana aa iskugu dhiirigelisaan. qof walba mustaqbalkiisa wixii shalay ahaa waa shalay way tagtay, waxay ahaydba way tagtay. qorshahaagu waa maxay? qorshahaagu mustaqbalka waa maxay? maxaa jeceshaa inaad samayso? ilaa noloshaaga inay ku dhammaato ma rabtid. 2 cunug intaad dhashid, intaad 2 cunug dhashid aad dhimato, waa inaad qorsho kala leedahay. teeda kale si waxaan lahay annaga soo intaan horta gelin qaybta kale aanan gelin, waxaan shalay haygu soo hadal qaadinina, shalay hay weydiinina. mustaqbalkayga iyo waxaan jeclahay iyo qorshahayga iyo meeshaan wax u wado i weydiiya shacabka soomaaliyeed. waa sidoo kale youtuberada magacayga ii daaya, wixii shalay ahaa iska daaya. ma rabtaa inaad fahiimo soo qaadataan? mustaqbalkayga i weydiiya, meeshaan u socda i weydiiye. iska daaya shalayto. I'm not interested. It's boring. boring bay noqotay hadda. markaan arko I feel bored. It's boring. ka gudba soomaaliyeed, ka gudba meesha aad istag ku noqoteen oo aad ku xiranteen maskaxdiinni ay ku xirantay wixii basiidka ahaa oo yaraa. nin iyo naag kala tegay iyo nin iyo naag isdagaalay iyo nin iyo naag inaad soo qaadataan. ka gudba soomaaliyeed. cabdifatax boodhar wuu ku saxsan yahay. sariirta inaad soo qaadataan soomaaliyay ka gudba. gabar inaad soo qaadataan soomaaliyay ka gudba. la tartama ragga ficiina, dumarka ficiina la tartama. walaalahay qaali, waana laga tegay. afka ciidna lagu buuxshay. soomaaliya qiimo ma leh, dadkeeduna qiimo ma leh adduunka agtiisa. idinma dhibayso, waxa idin dhibaayo maaha. marka aniga shaqsi ahaan waxaan idinkaga codsanayaa shacabka soomaaliyeed wuu ii fulinayaa. shacabka soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa shalay inaydana igu soo hadal qaadin, shalay inaydana i weydiinin. shalay waa shalay, waan ka gudbay. qorshaan leeyahay, waxbaan hiigsanayaa. waxaan hiigsanayana nin soomaali ma ku jiro. mid shalay ahaa iyo mid cusubba ma ku jiro. afkaygaas ka akhrista, dib dambana ha ii weydiinin. qorshaan leeyahay alxamdulilah, biidnillah ilaahay ha ii sahlo. qorshahaan leeyahay, wiilkayga qorshahaan u rabo, muraadada aan leenahay biidnillah allaha noo khayr noogu daro.
nin Soomaali ma ku jiro kii shalayna kuma jiro mid cusubna kuma jiro qorshahayga intaas anigu waana fariin ku socota Soomaali bulshada Soomaalida fiirsata oo walaalahay ah youtuberada fanaaniinta gabiyaasha gaaraarayaasha qorshahaygu waa kaas iska ilooba inaad joojisaan la rabaa wixii shalay ahaa aad ku waalateen oo isku wareerteen oo ku dawaqdeen inaad iska joojisaan oo aan hore u soconno Soomaaliyeed aan hore u soconno aan wax qabsanno aan wax baranno aan hore u soconno waxa daciifka basiidka ah iyo waxyaalaha aan waxba sheegaynin sanad ka dambeeyay sanado ka hor aad ku soo celcelinaysaan oo aad wax moodaysaan maskaxdiina stag ku noqotay aan hore u soconno aan dadka dadweynaha wax la qaybsanno aan barnaamij yeelano qof kasta qorshaha yeesho ha is weydiiso qorshahaagu waa maxay marka codsigaygu waa kaas qof walbaan ka codsanayaa tan labaad waxay tahay wiil baan shaqada ku arkay wiil Soomaaliya oo da'diisa aan ku qiyaasay 32 jir meelahaas aan ku qiyaasay aan shaqada ku arkay bismillah dhulku tirtiray markaas waxaan eri intaan la abow maxaa wax baran weyse kan eri سؤال عادي يعني قف كستو أو ويل كستو صومالي أنا وحنو أركا ولالك أما ويل كي محاو حبر ويساي مركزو حويري محاو حبر وصدني لبجر بانكو قياس محاو حبر ويساي مركزو محاو حبرنا عرور بان دلنا ودقوني وفكرة قف كستو صومالي كجرت مركو وحدلا دمشو سجايا قف كستو صومالي markuu wax laba dhalo asagoo sandan jir ah wuxuu sugayaa dhimasho bas waa inuu nolosheeda waa ay dhimaatay hami male horumar male 10,000 oo wadanka Nigerianka u dhashay oo rag iyo dumar bale 2017 18 19 20 waxay bilaabeen jaamacadaha ana ila shaqeynaya jaamacadaha ay bilaabeen inay kula degree soo qaataan aysan hore u haysan kula caruur bay leeyihiin qaar muslimiina ku jira muslimnimadu maaha horumarka inay ka celiso muslimnimadu horumarka kaama celinayso adoo cibaadaysanayo ilaahay ka baqaaya ad haddana wax baran kartaa shaqaysan kartaa hami yeelan kartaa hore u socon kartaa adoo caruur haysta ad hami yeelan kartaa shaqaysan kartaa hore u socon kartaa wax baran kartaa oo ka xumaada ereygaas uu yiri wadhallinyaradeenna qofka saas u hadlaya mana aha keligiis maxaan dhalay laba cunug hadduu dhalo ninka Soomaaliyeed noloshiisa waa dhamaatay gabadha Soomaaliyeed laba caruur hadday dhasho nolosheedu way dhamaatay dhimashay sugaysaa so sad dadkuna ayagoo 50 jir ah oo caruurahi ayagoo oo caruur haysta oo ilmo yar yar oo 2 jir 3 jir haysta jaamacada ka soo baxeen ninkii naagta iskaashanaya midba mar caruurta looga tagaya ma aha dadka umada kale inay soo caruur dhalayeen way dhalaa wada haystaan qof alla iyo qof ka arko caruur way haystaan way qorshaysteen noloshooda guriga iibsadeen qofba gelin buu caruurta haaya qofka Soomaaliga laba haduu dhalay bas waay dhimasho sugaya waa qof nool oo dhintay adduunka taas oo ugu xun markaa noqoto qof nool oo dhintay niyadda ka dhintay sorry walaalahay qaali qof nool oo dhintay ka waran wana nooshahay waxa miyana maliyad meel uma socotid ka waran walaalahay ana laga tagay Soomaali siil iyo gusbaan ku mashquulsanahay waana laga tagay sariir iyo nin naag isfuray waaga Cali Yuusuf waan ku mashquulsanahay annagoo rag iyo dumarba waana laga tagay wadankeena waa la qaatay waxaan ku mashquulsanahay maxaa la dhahaa musawir la soo saarto
wiilkeena 30 jirka wuxuu ku mashquulsan yahay musawir la soo saarto naageed naag la cambaareeyo ku mashquulsan yahay laakiin hami kuma jiro uu ragga ficiisa la tartamo waa ayaan daro waddanka Afrika ugu qorxoona waan haysanaa xeebta ugu dheer Afrikana waan haysanaa bad iyo bari iyo beeraba waan leenahay waddankeenana waa la qaatay dad aan Soomaali ahayn oo ku dhashay baa qaatay iyo kuwa aan ku dhalan annagana waxaan ka hadlaynaa nin naag isfuray raggeeni waxay ka hadlayaan nin naag isfuray iyo naag musawirkeed so ayaan darama marka Soomaali ahay aad dhahdidna alagu leeyahay waa ayaan daro waa Soomaalida waxa haysto waa ayaan daro Cabdulfataax Boodhari wuxuu sheegana waa ku saxayaan waa sax waxyar maayo Soomaalida waa wada noocaas waa dad nool oo dhintay oo dhimasho sugaya wax ka qabasho ma leenahay wallahi ma ogi mu eka it's so sad anyway aniga I will do my best waan ugu dadaalaya waxay awoodeyda oo sameynaya wiilkayga wax fiican waa baraya aniga jaamacadan ku noqonaya xirfad kale inaan yeeshaan rabaa muraad kale aan leeyahay hami kale aan leeyahay biidnillah ilaahayna khayr ha iigu daro idinkana khayr iyo barwaaqo idin rajaynaya laakiin qof walba waxaan hadda aan sheegayo ha ka fariisto inta ha ka fakaro inteedana soo boodin oo aadan qofka eedan ku soo boodin wixii idinkoon ka fakarin bal ka fakar xaaladda Soomaali ku sugan tahay iyo Soomaali ka fakar idinka أنا قرشان ليها بإذن الله إلهي خيرها يقدر مال بقى صعدا شلي أنا شلي بقى إيهات إلهي بصائي أبوري شلي بقى إيهات شلي كما فكر أنا واحد عاي قرشان ليها بإذن الله إلهي خيرها يقدر مال بقى صعدا مراد بان ليها بإذن الله لكن إن سومالي كما جرى قرشاي متخر ولا متدمع أنا أقول تحق لسانه ورباه ولا لا يقال aad baa idin salaamaya meel walba joogtaan hal jire madax madow iyo mid saawira midna laga sabro ma jire madax madow iyo mid saawira midna laga sabro Soomaali waa dadkayga marna kama sabraayo walaashin fahimo waaye meel walba joogtaan Allah idin xafido dambigeena Allah dhaafo isku day inaad riyootaan oo hore u socotaan walaalay qaali I love you all walaashin fahimo waaye arag dambe iyo wixii dibnaha u fiicnaa nafaqeynay ku jilcinay oo naturalka waan idin soo gelinay biidnillah walaalay qaali salaamu calaykum wa rahmatullah wa barakaatuh